السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن داوديال meel kastoo dunida aad ka joogtaan iyo si kastoo noo daawanaysaan kusoo dhawaada warka TV-ga Somali News ee maalin wanaagsan oo maanta oo Arbaca si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Muqdisho qodobada xilligan warka aad ku daawan doontaan waxa ugu horeeya dawladaha Qatar iyo Masar ayaa cambaaray weerarkii shalay ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaasi oo lagu qaaday xero ciidamada AMISOM iyo kuwa dawladda Soomaaliya ay ku leeyahay galbeedka magaaladaasi Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Faafahinta warkani waxa inoo haya wariyahayga Cabdiraxmaan Daahir Guutaale Maaliki. war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Masar ayaa si xooggan loogu cambaariyay weerarkii xarakada Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhig military oo taabacsan ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya oo ku yaallay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda Masar waxaa lagu sheegay in dawladda Masar ay garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed iyo xukuumadda federaalka oo ay muujinayso barbar istaageeda ku aadan ka hortagga waxa loogu yeeray argixisada gudaha. qoraalka waxaa lagu xusay in ficilada weerarada nooca oo kale ah ay xanibaad weyn ka saareen bulshooyinka Soomaaliyeed dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin dhismayaasha hay'adaha dawladda iyo xaqiijinta xasiloonida dalka. si taasi la mid ah waxay cambaareen ka soo yeertay dawladda Qatar oo iyaduna ku tilmaamtay weerarada iyo dagaalyahanada ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel ku yaallay magaalada Mandera ee Kenya iyo saldhig military oo ciidanka Djibouti ku lahaayeen Beledweyne waxaana lagu tilmaamay weerarkaasi inuu ahaa mid bahalnimo ah. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Qatar waxaa lagu sheegay in Qatar ay si weyn u cambaareynayso weerarkii Al-Shabaab ay ku beegsadeen hotel ku yaalla magaalada Mandera ee waqooyi bari ee Kenya kaas oo ay ka dhalatay dhimasho iyo dhaawac. bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda Qatar waxaa lagu sheegay sidoo kale in la cambaareynayo falalka dambiyada ee ay ujeedadoodu tahay argagax gelinta rayidka aan waxba galabsan iyadoona Qatar ay ka go'an tahay cusboonaysiinta mowqifkeeda ay ku diidan tahay wax kasta oo ku salaysan rabshadaha ka dhanka ah shacabka Soomaaliyeed. bayaanka waxaa tacsi loogu diray shucuubta dalalka Kenya iyo Soomaaliya iyo qoysaskii dhibanayaashii wax ku noqday faldambiyeedkii dhacay. waa sida lagu sheegay ee bayaankan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Qatar. dhaqaaqa Al-Shabaab ayaa laba weerar oo kan hore loo adeegsaday gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ku qaaday xare fariisin oo ahayd askarta Djibouti oo ku taalay xaafadda howlwadaaga ee galbeedka magaalada Beledweyne waxaana ka dhashay weerarkaasi dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah iyo qaar ka mid ah askartii halkaa ku sugnayd halka weerarka labaadna ay ku dhinteen 12 ruux oo ay ku jirto ruux dumar ah kuwaas oo ku jiray hotel yar oo ku yaalla magaalada Mandera. ila wareed dhanka ammaanka Soomaaliya qaabilsan iyo goobjoogayaal ayaa sheegay in dagaalyahano ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay weerar isnidaamina ku qaadeen saldhig AMISOM ay ku leeyahay Beledweyne waxaana weerarkaasi uu ku soo aaday kadib markii qarax lala eegtay hotelka Bishwar ee magaalada Mandera. gudoomiyaha dhinaca amniga ee gobolka waqooyi bari ee Kenya Maxamed Saalax ayaa u sheegay warfidiyeenada in qaybo ka mid ah hotelka uu burbur weyn soo gaaray isla markaana ay ciidanka ammaanka durbaba soo gaareen goobta iyagoo kadibna bilaabay howlgalkooda samata bixinta dhibanayaasha. wuxuuna xusay in burburka dhismaha hotelka laga soo badbaadiyay 6 qof oo nool ilaa iyo hadda. hase yeeshee dawladda Kenya ayaa beenisay in dhaqaaqa Al-Shabaab ay ka dambeeyeen weerarkaasi Mandera ka dhacay waxaana ay xustay in hotelkaasi weerarka lagu soo qaaday uu yahay mid laga soo abaabulay gudaha magaalada.